وحاهي كوحانتهاي جديدة بهمبهي كوحانتهاي علمي أقونتي كوحانتهاي وعلوم دينك هي كوحانتهاي المذوق وحاهي كوحانتهاي جديدة بهمبهي كوحانتهاي علمي أقونتي كوحانتهاي وعلوم دينك هي كوحانتهاي halkan waa xeebta degmada Hobyo oo ka tirsan maamulka Galmudug. 22 sano ee ugu dambeeyay Hobyo waxay ahayd deked macmil ah oo si dib badan wax looga dhoofiyo waxna looga soo dego, balse maamulka Galmudug ayaa hadda bilaabay dadaalo lagu horumarinayo degmada Hobyo. waxaana dadaaladaasi kamid ah sida ay Hobyo u yeelan lahayd deked rasmi ah. dhawaan waxaa Hobyo la geeyay ganacsato iyo injineero u dhashay dalka Ciraaq kuwaas oo qiimeyn ku sameeyay meesha laga dhisayo dekeda Hobyo. Hobyo waxay leedahay xeeb aad u qurxoon. halkan aan hadda taagnahay waa qarb ama jamal weyn oo labada dhinac ay baddu ka marto. sida arkaysaanba jamalka dhinaciisaas waxaa ku soo xirta ama ay fariisin u tahay doonyaha yaryar. maamulka iyo ganacsatada degmada Hobyo ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay dhismaha dekeda Hobyo iyagoo fariin u diray bulshada reer Galmudug. waa kan gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo arrimahaas ka hadlaya. walaal sida la socoto 99% ayaan dhigi karnaa maadaama dawladda federaalka wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha Galmudug ay ayaga Hobyo yimaadeen ee dhagax dhigaan. runtii waxaan dhigi karnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladda federaalka ay beesha caalamka inay ka qayb qaadan doonaan kambaniyada ku tartamayo oo maaragtay aan ognahay sida Turkiga, China, Imaaraadka ayana insha Allah kii noo soo hormaro ummadda wuxuu qabanayo inaan ku soo dhaweeydon hadduu Ilaahay yiraahdo. dadweynaha maaragtay reer Galmudug meel walba ay joogaan dal iyo dibad waxaan u soo jeedinaynaa in deegaankoodii iyo dalkoodii wax ka qabsadaan ay yimaadaan dhiirigeliyaan maamulka cusub waxtar iyo wax soo saar aad u weyn ay ka qayb qaadan doonaan. runtii qof kale inay waxba qaban karin oo ognahay waxaan u baahanahay ganacsatada culimaadoodinka aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka cid alla ciddii maaragtay wax nala qabanaysa ama deegaankooda wax u qabanaysa welcome ayaan leenahay. dalkan wuxuu soo jeestay sadexgal midnimo walaalnimo horumar inay kula qaybsadaan ummadda Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo. Galmudug waxaan u rajaynaynaa insha Allah intaan in ka wanaagsan hadduu Ilaahay yiraahdo inay ku dhaqmi doonto ana ku soo saaro ammaanka degmada ka war. ammaanka degmada 90% waxaan dhigi karnaa marka oo fiiriyo Galmudug ama Soomaaliya meelaha ugu wanaagsan ee ammaanka dhankiisa ay ka mid tahay. waxyaalo yaryar oo iska jiraan insha Allah waxaan rajaynaynaa ayagan inay ka dhamaad doonaan ee noqon doonto meesha ay number 1 Soomaaliya u noqoto dhinaca amniga. dad badan aaminsan in Hobyo ammaankeeda aan la isku halay karin oo aan la imaan karin. dadka maxaa soo jeedinaysaa? walaal amniga 100% dhiimeena 90% adinari taasna waxaan idin daliil ah dadka imaanaya nooc walba oo iskugu jiro Soomaali iskugu jira janib ay ku soo qulqulaya Galmudug ayaa cadaan idin niyeyso ana isha macalna imaada oo indhiina ku arka qofna maaragtay sidii turjumin qof walba asaga qiimeysanayo hadduu Ilaahay wax soo saarka iyo wax qabadka iyo amniga ee haysta degmada Hobyo gaar ahaan Galmudug oo dhan waxaan leenahay ku soo dhawaada aan wada dhisano aan wada nooleysano. magacaaga marka ku bilow. bismillaah rahmaan rahiim. magacayga waxa la yiraahdaa waxaan ka hadlayaa magaca ganacsatada ayaan ku hadlayaa. waxaan u sheegayaa ganacsatada degmada Hobyo iyo Galmudug ilaa Soomaaliya dekeda Hobyo waa tan way furan tahay. waxaan ugu baaqayaa inay wax kala soo degsadaan hadda doonyaha ujeedada waxyaabihii xarunta jilaha way ka mid yihiin waxyaabo badan kale tan hadda way soo socdaan sida saacadaha camal way soo socdaan way imaanayaan insha Allah ta'ala biidni karim. dekadu way furan tahay si macmal ahaan ayay noogu shaqaynaysaa
dekedda hadda waa la dhagax dhigay oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dhagax dhigay dhismaana insha Allah taala dhow waqti dhow in loo bilaabato ayaa rajaynaynaa caalamkana waxa uu baaqaynaa inay si degdeg ah uga qabtaan maraakiib ama doonyo inay ku soo xirtaan toddobaadkan ama toddobaadyadan soo socda la rajaynaya ma jiraan insha Allah su'aad weyn baa loo rajaynayaa maraakiib loo markaa waaweyn in ku soo xirto dhawaan ayaa la rajaynayaa insha Allah maamulka cusub ee degmada Hobyo ayaa talaabadiisii ugu horeysay ee uu qaaday waxay ahayd in shirar loo qabto dadka deegaanka isla markaasna lagu wacyigeliyo horumarinta deegaanka waa kan duqa degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali oo meel fagaare ah kula hadlayay boqolaal dadweyne ah wax kale oo meemalkan waxaan u imid aad ii gubtay aadna aan uga gobanayaa in wiilka ku dhashay Hobyo uu ku qaan gaaro iskuul la'aan aad u calool xumo badan tahay magaalada Hobyo iskuuladeeda iyo waxbarashadeeda dadka ka baxay waxay ka mid dadka marka soo hadal qaad Soomaaliyeed ay istaag oo reer Hobyo ah marka waa ayaan dar in Hobyo 25 sano ay xaaladda ku sugnaato wax la dul qaadan karo ba ujeedada aan leenahay waxay tahay in halkan inay Hobyo yeelato horumar aanan magaalooyinka kale lahayn Hobyo ha ogaato cadow ay leedahay cadow badan ay leedahay cadowga ugu horeeya waxay tahay in neefka Hobyo gobolada dhexe yaal xoolaha gobolada dhexe in laga dhoofiyo ilaa cadaalad isma 1 kiiloomitir in loo qaado 1 kiiloomitir waxay dekad u weydo Hobyo dadoo hadaa garashadeedii waa garan kartiin inaa garataan loo baahan waa cadowgeeda dhex yaal ayaa leedin soo diray lacaga leedin isticmaalay waa leedin leeynaya ku talagal in isdifaacdaan ku talagal in ku talagashaan Hobyo inay cadow badan leedahay intaas markaan ka gudbo Hobyo caalamka oo dhan soo eegaya ama kuwa ku abtirsan ha noqdaan ama donoriska dadka liyaada kaalmada bixiya ama dadka dalalka dhisa Hobyo waa soo wadeega hay'adaha idinku tartamaya shirkadaha idinku tartamaya cid walba ku tartamay laakiin waxa ay noqon karaan waxa soo idil wax rula hadii amaan la helo amaanka inaan ka wada shaqeyno diyaar muuna qabiil inaan tuurno diyaar muuna hal qof inaan nahay diyaar muuna waxaan idin ballan qaaday ilaaha ballan iskale waxaan idin ballan qaadaa inaan cadaalad idinku shaqeeyo waxaan idin ballan qaadaa inaan qoys noqon wax aad u xun badan cadaalad ma xaqna ma dawladda horena waa akrata Hobyo tiisiyaad barra akrata kuwii ka horeeya akrata tan maanta aan haysanay Cabdikariim hogaaminaya Xasan Sheekh waxay diyaar u yihiin inay Hobyo dhisaan ma dhisanayna mise ma dhisanayno haddii aan nahay haweenka degmada Hobyo gudoomiye waxaan ku sheegnaa anagu qabiil ma lihin qabiilkeenu waxa weeye waa hal magac baan leenahay waa haweenka dadka qolqolada iyo jifada xu kala raadsanayo kuma jirno anagu hal magac baan leenahay waa ku soo dhaweynaynaa meeshan galabta aad fadhiday quruxda badan ayadoo baabado burbursan waxa dayac tiray oo duhabeenta ku sameeyay oo dhexda u xirtay waa haweenka degmada Hobyo oo iyagu isku xilsaaray ayagoo dal iyo meel kala dibad wax u raadsan madaxweyne gudoomiye waqtigu ciriiriya iyo madaxda sharafta leh in marba maadaama waqti habeen uu yahay kulay insha Allah mar waqtiga kale taan kulmi doonaa waxay la tahay haweenka degmada Hobyo oo haween qaaliya ah waxay la tahay in xisaabtooda buug waa kugu qoranta insha Allah waana baran doontaa waana kula shaqeynaynaa hiiriyo hoona kaalmo hari doono hadday iska wuxuu qabsan tahay wax kasta diyaar baan kula nahay adigii madaxdaada kuwana horeeto iyo kuwa kale aan is aqoon oo macnaa wasiirada ama wasiir ku-xigeenka ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galmudug gibil weeyayo roobku faacyabe galmudug gibil weeyayo roobku faacyabe gacal baro qabnaaye rabeeyo gareera galen gacal aro qabnaaye rabeeyo gareera galen oo guusha dunida oo dhan rabeeyo gacmaha u saar waxaa shaqo bilaabay garoonka diyaaradaha ee Hobyo inkasta oo aan weli dhismo balaaran lagu sameyn haddana waxaa si caadi ah u soo fariista ugana duula diyaarada kala duwan maareeyaha garoonka diyaaradaha Hobyo Cabdi Warsame Afrax ayaanu ka wareysanay arrimaha garoonka airportkan waxaa ka soo dega diyaarado dhowr nooc ah oo passenger ah waana u jeedin dhibaatada iyo ka muuqata inay ku aragtaan marka waxaan u dhihi lahaa hay'adaha caalamiga ah
waxaan dhihi lahaa hay-adaha caalamiga ee kuwa localka iyo intii danaynaysa in gobolkan ama degmadan wax laga qabto horumarinteeda inaan soo dhaweynayno maamulka iyaga cusub haddii alla idmo waxaana kaloo si gaar ah oo mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa dadka deegaankan u dhashay Hobyo jaaliyadaha ah ganacsatada siyaasiyiinta inay u gurmadaan una ordaan una dadaalaan in ay wax ka qabtaan airportkan waad u jeedin caalamada meesha hadda aan arkayo waa fiiqan yahay musqulo ma leh weytinkii dadka markay ay baxayaan oo ay soo galeen waa dhul bannaan oo siyaad iyo abaar oo dhibaato ka muuqato ku baaqaa mar labaad ugu baaqaa oo mar saddexaad ugu baaqaa qaasatan dadka deegaanka oo dhalinyaro leh odayaal leh waxgarad leh siyaasiyiin leh inay u soo jeestaan inay airportkan wax ka qabtaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacaygu waa Cabdulle Nuur Sable gudoomiyaha samafalka degmada Hobyo. wallahi samafal ahaan horta caafimaadka waa lambar 1 meeshaan isbitaaladkeedu waa isbitaal weyn ma jiro MCH iska jira ayuu hay'ada ayaa gacanta ku haya inta sanadadan dambana xaaladoodu ma fiicna waa si baabahayeen marka lambar 1 waxaan dheerayn caafimaad lambar 2 waxbarasho ayana kama jirto iskuulad ma leh sida meel kasta laga ogyahay Hobyo iskuul ma leh waxa kale aan focus ka saaraynaa biyaha biyo nadiif ah dadku hadii helin cudur kasta meesha halis u yeelo ka dilaaco sida cudurka daacunka iyo maanta shoombiyoda kale hadda koor ilaahay fadligiisa waa cudurada ka dhici jiray shoombiyoda ceelkaas sidii loo helay waa yaraada moodo ilaahay fadligiisa marka waxaan leenahay biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada saddexdaas asaasi weeye in horta la helo marka weyn intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo aynu uga hadli doono xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada Galmudug inta ka horeysa waa Cabdi Xasan Awowe oo idin leh isma dhaafno.